subax wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan soo dhowaada. Mareykanka oo duqeymo xoogan ka wada gudaha dalkaasi Iiraan oo si toos ah u duqeynaysa saldhigyada gobolka uu ku leeyahay. Qasaarihii ugu dambeeyay iyo weliba goobaha Iiraan ee beegsatay ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkan kugu soo gudbin doona. Maxaa faahfaahin oo laga helay weerarkii lagu qaaday dekad ku taala dalka Masar oo lagu weeraray markab gaas ka qaada oo isagu markaasi halkaasi ku sugnaa oo diyaarad drone lala beegsaday. Faahfaahinadii ugu dambeeyay maxaa ka jira Xuutiyiinta in ay canshuur ku soo rogayaan maraakiibta maraysa marinbiyoodka Baabalmandab. Tabintan ayaan kugu hayaa oo aan kugu soo gudbin doonaa. Soo dhowaada wararkii ugu waaweynaa iyo weliba dhacdooyinka iminkan ka dhacaya bariga dhexe ayaa qayb ka ah oo tabintan aan kugu soo gudbin doonaa. Channelka subscribe saaro waa maalinimo Khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay 30 bisha July sanadka 2026. Ku soo dhowaada daawadayaal tabinteeda koowaad ee barnaamijkayaga. Aanu ku bilownay. Sidaad la socoteen saacadihii ugu dambeeyay waxaa jira weeraro xoogan oo lagu qaaday qaybo badan oo ka mid ah dalkaas Iiraan. Faahfaahinadii ugu dambeeyay ciidamada Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa waa berigii Khamiista oo saaka haydin duqeymo ay ka fuliyeen qaybo badan oo ka mid ah dalkaas Iiraan gaar ahaan deegaanada koonfurta ku yaala. Warbaahinta rasmiga ee dowladda waddankaas Iiraan ayaa waxay sheegtay 2 qof inay ku dhaawacmeen jasiiradda Qishim kadib markii weerar lagu qaaday guri dad ay deganaayeen oo gantaallo ay gaareen. Ku-xigeenka gobolka Hormuzgan gudoomiyaha ninka u ah ayaa isagu waxa uu sheegay 3 qof weli inay ku hoos jiraan dhismo burbursan oo la beegsaday oo diyaaradaha dagaalka duqeymahoodu ama gantaaladii lagu tuuray ay ku dhaceen. Waxaana uu sheegay inay soconayaan howlaha samata bixinta waqti xaadirkan dadkaasi lagu soo badbaadinayo. Mas'uuliyiinta gobolka Khuzestan ayaa iyaguna sidoo kale ku waramay in gantaallo ay ku dhaceen qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi Iiraan. Waxaana sidoo kale uu sheegay in dowladda waddankaasi Mareykanka ay beegsadeen jasiiradaha Abu Musa, Kish iyo weliba deegaanada u dhow badda ee Qishim. Wakaaladda wararka ee Tasniim ayaa sidoo kale iyaduna ku warantay gantaallo Mareykanka uu soo tuuray in lala beegsaday qaybo badan oo dalkaasi waxaana ay sheegtay wakaaladaasi in dalka Kuwait gantaaladaasi ay ka yimaadeen, taasoo ka dhigan ciidamada badda Mareykanka kaliya inaysan ahayn saldhigyada gobolkaasi inay isticmaalayaan sidoo kale goobaha lamadegaanka inay isticmaalayaan oo ciidamada Mareykanka iyagu dalka Kuwait ay ka weerarayaan dalkaasi Iiraan, taasoo Iiraaniyiintu iyaguna ay sheeganayaan inay xaq u leeyihiin inay ka jawaabaan isla markaana ay beegsadaan dalka Kuwait iyo dal kasta oo rasaasi ay kaga soo dhacdo. Mas'uuliyiinta gobolka Khuzestan ayaa sidoo kale sheegay gantaalada Mareykanka oo lala beegsaday magaalooyinka Hafaz, Shadgan, Abadan iyo weliba magaalada kale ee Arvad Kanar. Telefishinka dowladda waddankaasi Iiraan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay iyo wakaaladda wararka ee Faris iyo midda kale ee Nuur in iyaguna qaraxyo ay ka maqlayeen Bushahar, Kish iyo weliba Hafaz. Dhanka kale taliska ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa iyaguna waxay xaqiijiyeen weerar inay ku qaadeen gudaha dalkaasi Iiraan sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. Faahfaahinadii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa waxaa lagu sheegay dowladda waddankaas Iiraan in ay markaasi ku xadgudubtay sida Mareykanku uu sheegay oo ay beegsatay dalka Urdun iyaguna ay ka jawaabayaan. Waxaa tobanaan bartilmaameed ayaanu ka beegsanay ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan ciidankooda iyo weliba goobaha ay halkaasi ku lahaayeen ayaa la yidhi. Iiraan waxay ku eedeysay weerarkan inuu jibinayo heshiiskii isafgaradka ee hore loogu gaaray Switzerland isla markaana dib uga laabtay Mareykanka maadaama dhowr cisho hakad ugu jiray. Iiraanna waxay diiday 10 cisho oo Mareykanku uu dalbaday oo uu ku sheegay inay tahay mid markaasi xabajoojina, laakiin Iiraan ay u arkaysay mid hub iyo weliba qalab cusub uu isagu ku soo urursanay. Waana ay diiday waxaana ay sheegtay inay diyaar u tahay dagaalka inuu sii socdo, duqeymahana halkaasi ay ka sii soconayaan. Taliska ayaa waxay iyagu sheegeen weeraradan inay ahaayeen kuwa cusub oo kuwa Mareykanka, waxaana weerarkan uu imaanayaa saacado yar kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu isagu ku hanjabay in weerar xoogan lagu qaadi doono Iiraan. Weerarada Mareykanka ayaa waxay yihiin kuwa fashil xoogan uu isagu hareeyay maadaama hadaaftii ahayd in la rido dowladdan iyagu la gaari waayay. Waxaana sidoo kale la sheegay in la bartilmaameedsaday Bandar Abbas, jasiiradda Abu Musa, Kish, Qishim, Bushahar, Abadan, Hafaz, Shadgan marka deegaanada kale ee ku dhow magaalada caanka ah ee Kazaroon.
ujeedada ugu weyn ee meelahaasi loo beegsanayo ayaa la sheegay inay yihiin in la qabsado deegaanada u dhow dalka Iiraan islamarkaana ay noqdaan kuwa lagu beegsan karo marka maraakiibta maraysa marinbiyoodka Hormuz markaana laga saaro gacan ku haynta ciidamada dalkaas Iiraan kadibna ciidamada dalkaasi Mareykanka iyagu ay maamulaan waana waxay diidan tahay Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. Geesta kale la taliyaha hogaamiyaha sare ee dalkaasi Iiraan Ayatollah Mujtaba Khamenei la taliyihiisa Mohamed Mukhbir ayaa isagu wuxuu sheegay in weerar kasta oo lagu qaado awoodda difaaca wuxuu ugu yeeray inay tahay mid ka dhan ummadda Islaamka taasoo bedeli doonta gebi ahaanba dagaalka wuxuuna ku sheegay isbedel weyn oo istaraatiiji ah inay gaari doonaan. Mukhbir wuxuu ku tilmaamay xadgudubka madax bannaanida Ciraaq inuu yahay jabin cad oo markaasi lagu sameeyay axdiga qaramada midoobay isagoo muujiyay in tani ay muujinayso qalaasaha waqtihadirkan ka jira amniga gobolka nidaamkiisa in Mareykanka iyo waliba Israa'iil iyo xulafadoodu ay qayb ka yihiin. Wuxuu carabka ku adkeeyay madax bannaanida Ciraaq iyo waliba ciidamada qalabka sida in qayb ay ka yihiin nidaamka difaaca gobolka isagoo ka digay weerar kasta oo lagu qaado inuu bedeli karo isku dheelitirka awoodda. afayeenka taliyaha guud ee ciidamada dalkaas Ciraaq ninka lagu magacaabo Sabax al-Nu'man ayaa isagu waxa uu sheegay weerarkan uu ku tilmaamay inuu yahay mid carqaladeynayo baaritaankii lagu waday eedeymaha ku saabsan weeraradii lagu qaaday xarumaha shidaalka Sacuudiga. Dowladda Ciraaq ayaa iyaduna waxay sheegtay inay diyaarinayso qorshe cusub oo lagu xoojinayo amniga dalka iyadoo ay adkeysay inaysan ogolaan doonin hub ka baxsan gacanka dowladda iyo waliba xadgudub kasta. dowladda waddankaas Ciraaq iyadoo dhibaato xoogan ay ku jirtaa gacan waxay isaga ilaalinaysaa kooxaha argagixisada ee Daesh iyo kuwa kale la midka halkaas lagu beeray waliba Mareykanka iyo waliba xulafadiisu halkaas ay ku beereen marka sidoo kale dhibaatada kale haysta waxay tahay in ay marka ciidamada maleeshiyaadka lagu tilmaamay Iiraan taageera ciidanka dowladda ay xoog badan yihiin ciidamada maleeshiyaadka waayo markii dhulkaas la qabsaday oo Mareykanka iyo waliba xulafadiisu ay taageereen kooxihii argagixisada ahaa ilaa Mosul la soo gaaray magaalada Baghdad waliba qaybo yar oo kamid ah kaliya dowladda ay ku soo hartay waxa jirtay in ay u soo gurmadeen Iiraaniyiintu lana aasaasay ciidamadan ama maleeshiyaadka hadda kuwa lagu tilmaamo isla markaana iyagu yihiin kuwa taageera Iiraan markaasi laakiin wadamada khaliijka oo dhanba kuma qanacsana maleeshiyaadkan Iiraan taageera waxaanay leeyihiin macquul maaha in markaasi kooxahan ay iska sii jiraan dalka Ciraaq haddii maleeshiyaadkan laga takhaluso dowladda Ciraaq ay tirada waan ka takhalusayaa ma awoodo in dalka oo dhan amnigeeda ay gacanta ku hayso markaasi xitaa haddii la yiraahdo Iiraan waa laga soo jarayaa oo khaliijka ayaa markaa isku mabda laga dhigayaa in Mareykanka marka laga hadlayo dalka Ciraaq laakiin xiisadda hadda waxa leeyahay wadamada khaliijku waxa haysata culays weyn oo ah laba daran mid dooro sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan. haddaba waxaa jiray saacadihii ugu dambeeyay Iiraan weerar xoogan inay ku qaadeen qaybo badan oo kamid ah saldhigyada ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin gobolka. Wafaaynadii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in ciidamada markaas ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan iyagu ay beegsadeen qaybo badan oo kamid ah waddankaasi Urdun iyo saldhigyada ku yaala. Telefishinka dowladda waddankaasi Iiraan isaguna wuxuu baahiyay weerar gantaal ah in lagu beegsaday saldhigga ciidamada cirka ee Muwaafaq al-Saldi ee dalkaasi Urdun kaas oo ku saleysnaa xog sirdoon oo sax ah oo la gaarsiiyay xaruntaasi Khatamul Anbiya oo halka looga taliyo howlgaladana laga maamulo. Sida warbaahintu ay sheegayso weerarkan ayaa yimid kadib markii Mareykanka uu isagu dib uga daadgureeyay saldhigyo diyaaradeed oo nooca dagaalka A10 iyo waliba F15 isla markaana geeyay meel kale oo markaasi muhiim ah laakiin nidaamyo cusub ayaa oo ciidanka kamid ah ayaa halka uu isagu geeyay laakiin Mareykanku wuxuu la yaaban yahay hubkiisa haddii uu qolkan isagu ka bixiyo qolka kale uu isagu geeyo Iiraan way ogtahay waxaad arkaysaa maqribnimadii oo kale hubba halkan u yaala waa la duqeynaya wixii ka haray buu ka qaadaya qayb kale buu geenayaa salaada subaxii waxay ka wareelaysaa Iiraan isla goobta in laga qaaday goob kale la geeyay goobtii labaad ee la geeyay bay duqeynaysaa. Mareykanku wuxuu ku wareersay marka awooddaasi sirdoon ee Iiraan ay yeelanayso isla markaana tooska iyagu ay ugu duqeyn karaan qaybahaasi marka wuxuu leeyahay waxaan lama aqbali karo sida ay Iiraan ugu suuragalayso waa inaanu helnaa markaas. Iiraaniyiintu ayaa la tilmaamay marka inay beegsadeen qaybo kamida saldhiggaasi Muwaafaq al-Saldi kaas oo xarun weyn oo ciidamada cirka
ee Mareykanka ay lahaayeen oo ku yaala dalkaasi Urdun. Waxaana warbixinta inta ay ku dareysaan ciidamada cirka ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan ay heleen awood gantaalo oo ay markaasi ku maamulayaan hawada dalka Urdun ayaan qabsanay bay leeyihiin markaa Iiraaniyiintu. Iiraan waxay tiri hawada dalka Urdun ayaan qabsanay. Waxay leeyihiin awoodda hubkayga ee hadda cusub aan helay ee aan isticmaalayno wuxuuna siinayaa si madax bannaan awoodda dalka Urdun inaan ku maamulo meeshaan doona ka duqeyno. Waxaa jirtay maalin dhexdaasi in la beegsaday dalka Kuwait diyaarad dagaal ay ku beegsadeen baa layiri oo nooc F5 markaa si naadir dhowr jeer bay isticmaaleen dagaalka bilowgiisii mar bay isticmaaleen marka dambana mar bay isticmaaleen baa leeyahay. Marka waa laga yaaban yahay Iiraaniyiintu waxay iyagu markaasi sameynayaan Trump laf dhuun gashay ayaa markaasi ay ku noqdeen odagu meel uu markaasi isagu aado ayuu la yaabaa leeyahay markaasi. Haddaba calaamad su'aal badan baa ka taagan talaabooyinka Xuutiyiintu iyagu ay ku fakarayaan iyo weliba haddii arrinta ku saabsan in ay qaadaan canshuur ay sax tahay iyo in kale. Wararkii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa waxay ku waramayaan in Xuutiyiintu ay arrinta ka soo jawaabeen. Waxay yiraahdeen jawaab cad baan idinka siinaynaa. Xafiiska siyaasadda ee kooxda lagu magacaabo Ansarullah Xuutiyiinta markaasi xubin ka tirsan xafiiskaasi siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa Ansarullah Xuutiyiinta ninka la yiraahdo Xisaam al-Asad ayaa beeniyay wararka sheegaya in Xuutigu qorsheynayo in canshuur ay ku soo rogaan maraakiibta isticmaalaysa marinbiyoodka Hormuz. Asad wuxuu sheegay in Bab al-Mandab uu furan yahay maraakiibta caalamiga si nabad ah oo ammaan ah markaasi marka laga reebo kuwa uu ku tilmaamay cadowga ama Sacuudi Arabia sida uu ku eedeeyay. Uu carabka ku adkeeyay in maraakiibta Sacuudiga laga mamnuuci doono in ay maraan marinbiyoodka Hormuz ilaa ay marinbiyoodka Bab al-Mandab ilaa iyo Riyadh inay ka soo marka ugu horeysa cunaqabataynta inay ka qaadaan Yemen inay soo celiyaan xaqii shacabka Yemen inay ixtiraamaan madaxbannaanida dalkaasi inay xoojiyaan ama joojiyaan faragelinta arrimaha gudaha ee dalka Yemen. Hadalkan ayaa wuxuu imanayaa xilli wakaalada wararka ee Reuters ay warisay iyadoo xiganaysa ila xog ogaal ah sida ku sheegtay marka laga Xuutiyiinta inay ka fiirsanayaan canshuur ay ku soo rogaan maraakiibta ganacsiga ee mara koonfurta badda cas gaar ahaan marinbiyoodka Bab al-Mandab ee xiga dhanka Xuutiyiinta ama magaalada Sanca. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay iyagu sheegayaan in markaasi lacag aan looga baahnayn caadi loo marayo laakiin Sacuudiga maraakiibtiisu gebi ahaanba aysan maraynin sida iyagu ay ku eedeynayaan. Warar kale ayaa jira saacadihii ugu dambeeyay soo baxay sidaad arkaysaan markabkan wuxuu ku sugnaa dekedda Dimyaad ee ku taala dalka Masar. Dekeddan ayaa markabkii ku sugnaa waxaa la sheegay in lagu dhuftay diyaarad drone ah oo aan duuliye lahayn. Shirkadda amniga badaha ee Ambre ayaa waxay sheegtay markab shidaalka qaada ee marka laga leeyahay Mareykanka kaasoo saarna ama qaadaya gaaska dabiiciga ah in markaasi la beegsaday diyaarad drone sana lagu dhuftay markaa. Waxaana dhacdadaasi ay ka dhacday isagoo ku sugan dekedda Dimyaad ee dalka Masar. Wasaaradda Batroolka ee dalka Masar ayaa xaqiijisay dab inuu ka kacay laba markab oo dib markaasi kuwa doonayay in ay gaaska markaasi Masar ka geeyaan. Waxaana Masar ay sheegtay inaysan jirin wax dhaawac ama dhimasho ah oo ka dhashay dabkaasi. Sida ay sheegtay shirkadda marka la yiraahdo Inshep ayaa waxaa la sheegay dab inuu ka kacay labada markab ee gaaska qaaday ku sugnaa dekeddaasi. 3 ilo oo markaasi ganacsiga ayaa waxay sheegeen in diyaarad drones lagu dhuftay markabkan gaaska. Sidoo kale waxaa la sheegay in dabkiisii labada markab oo kale ay gaareen. Su'aasha la isweydiinayo waxay tahay yaa maslaxad ugu jirta in dalkaasi Masar la weeraro. Masar waxay leedahay ciidan xoogan iyo dal xoogan marka laga hadlayo waqti xaadirkan laakiin arinta kale xiisaha leh waxay tahay waxaa la sheegay in la rabo Masar in dagaalka qayb laga dhigo. Sidee baa qayb laga dhigaya? Masar iyo Xuutiyiintu wax khilaaf oo ma dhaxeeyo waqti xaadirkan markaasi oo maraakiibta maraysa halkan marka Bab al-Mandab laga mamnuucay Sacuudiga leeyahay waxa jirtay in kanalka Suez caadi u marayaan way duqeyn kareen wadadana way ku duqeyn kareen xataa kanalka Suezna way duqeyn kareen labaduba ma aysan sameyn. Marka khubaradu waxay leeyihiin Masar wax khilaaf kala dhaxeeya Xuutiyiinta ma jiro. Iiraan marka aad fiiriso shacabka Masaaridu marka laga tago dawladda xataa dawladda marka aad eegtid si toos uma cambaareynin oo Iiraaniyiintu marka sida Khaliijku waxa ugu sheegayeen Masar way ka gaabsatay marka waxa jiray shacabkooduna aad bay u taageersan yihiin ba Iiraaniyiintu marka
sidaas daraaddeed waxay ogyihiin marka laga soo dhammaado dalka Iiraan in wax ku xiga iyagu inay noqonayaan marka iyo Turkiga sidoo kale taasina cadaawad kala ma dhaxayso Iiraan marka maleeshiyaadka Ciraaq hadda Iiraan taageeraya waxa la calaamad su'aal badan baa ka taagan iyaguna inay qayb ka yihiin markaas oo Iiraan iyo waliba Xisbullahna sidoo kale waxa la tilmaamayaa teedii ayaa haysata oo Israa'iil baa albaabka u taagan jabad kale iskuma furayso markaas waxa soo dhanbiyadu ay jiraan waxa leeyahay markabka waxa iska lahaa Mareykanka laba dhinac baa markaas suuragal ah leeyahay Mareykanka inuu rabo inuu markaas isagu lugaha u geliyo dagaalkan uu yiraahdo ciidamo far badan baa leeyihiin dagaal far badan baan siinayna isdifaaca oo markaas dagaalkan gala Iiraan ka hortaga markaas inay ka dambeeyaan markaas Israa'iil waxaad ogtiin iyo Masar cilaaqad fiican baa ka dhacay waliba gaaska dabiiciga waqtiyadii ugu dambeeyay waxay ka qaadanayeen oo heshiis baa jiraba gaaska dabiiciga Israa'iil bay ka soo qaataan iyagu marka Masaaridu maadaama dal far marka ballaaran uu yahay dhaqaale xumo ay haysto samarkaana uu rabo dalkaasi in aad iyo aad ay marka dadkoodu ay korontada uga caawiyaan taasi waxay keentay baa leeyahay in wadamo badan Mareykanka kale gaas bay ka qaataan baa leeyahay sidoo kale waxa jira Israa'iil inay ka qaataan laakiin ilaa hadda dawladda Masar waxay sheegtay in faahfaahin cad aan lahaynin baarista ay wadaan kadibna ay soo xaqiijin doonaan haddii waxan ay yihiin qarax marka ka dhashay marka waxyaabo iska caadi ah ama drone banaanka ka timid ay tahay iyo inta ay masaafo ay soo jirtay iyo waliba ugu yaraan jihada ay ka timid markaas gudaha dalka Masar marka looga tuuray ma banaankiisaba ma Israa'iil baa ka dambaysa Xuuti baa ka dambeeya cid kale baa ka dambaysa lama garanayo intuba waxa leeyahay dawladda Masaaridu waxay wadaa baaritaan markaas sawirkan ayaa ugu xiisaha badan markaad eegtid magaalada Tehran waxaad arkaysaa sawirkan inuu yahay mid kamid ah kuwa lagu hadalay inta badan yahay odagii Trump ah oo dhuunta lagu dhagan yahay isla markaana ciigo dhab lagu hayo ayaa lagu dhajiyay markaas meelaha fagaarayaasha ee magaalada Tehran iyo waliba kuwa kale la midka taasoo markaas muujinaysa in shacabka la dareensiyo in Trump jiq ay ku tahay markan xaalkuna uusan ku qurux badnayn gudaha barnaamijkeega subaxnimo daawadayaal waa naga inta barnaamijku waxa kala socoteen Warweyn TV anigoo Cabduqaadir Qayska ayaana barnaamijkeeda la socodsiinay waxaanu ku eegnay duqeymihii ugu dambeeyay ee Mareykanka uu ku qaaday Iiraan iyo waliba jawaabta culus ee marka Iiraaniyiintu ay ka bixiyeen ta ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida waa dhamaantii isku duubanayd nabadgelyo